aqoon-yahanada dhanka baaritaanka ah waxay haystaa shahaadooyinka dhanka fiisigiska iyo kemistriga. taas kama hor istaagin inay soo gasho saaxadda siyaasadda. waxay noqotay wasiirad, waxay isaga kala goystay wasaaradda tan xigta ilaa ay ka noqoto hogaamiyaha xisbigeeda. waxay barbaartay xilligii kala tagga iyo qaybinta ee ka jirta dhulkeeda, laakiin markay weynaatay waxaa caawiyay midowgii labadii Jarman. waxay jebisay dhammaan caqabadihii derbiga u dhexeeyay wadamada dariska iyo caalamka intiisa kale. waxay ku naanaysaan dadka muhaajiriinta ay Jarman dhaladka ah maama xukunkeeda dabacsan awgeed. waa marwo hogaamineed. waxay hagaajisay dhammaan wax kastuu dumiyay Naazigii Hitler. waxay kor u qaaday dhaqaalihii waddanka, wuxuuna gaaray halkii ugu sarreeyay ebed. maysan istaagin, lamana joojin. waxay noqotay la taliyaha koowaad ee dowladda. haddaba waa dowladee? waa mid ka mid ah dowladaha ugu awoodda badan caalamka. waa dowladda Germany iyo la taliyaheeda ugu sarreeya Angela Merkel, haweeney u dhiganta kurraga. Angela Dortial Merkel waxay dhalatay Juulaay 1954. waa gabadha Hooster Kasner, xag jirkii diinta Kiristaanka, gaar ahaan madhabta Lutheriga. hooyadeeda Haalinda waxay ahayd macallimad luqadaha Ingiriiska iyo Laatiinka. Merkel waxay ku dhalatay magaalada Hamburg. waxay ahayd ardayd ka tilmaaman fasalkeeda. waxay ka qaaday shahaadada digtoorada jaamacadda Leipzig sanadii 1978. qalin bedelashadeedii kadib waxay ka shaqo bilowday macadka dhexe ee physics chemistry-ga, gaar ahaan akademiyadda culumta sanadii 1978. waxay ku biirtay xisbiga Christian Democrats kadib dumintii derbiga Berlin 1989. waxaa loo magacaabay wasiiradda dhalinyarada iyo haweenka. kuma aysan raagin ilaa ay ka noqoto wasiiradda deegaanka iyo nabadgelyada nuclear-ka. tallaabadii ku xigta waxay noqotay xogayaha guud ee xisbigeeda sanadii 1998 ilaa ay ka noqoto madaxa xisbiga iyo hogaamiyaha ugu sarreeya. balse tallaabadii ugu weyneed waxay sanadii 2005 oo ay isku sharaxday la tartanka hogaamiyaha waddanka ee xilliga Gerhard Schröder, waxayna ka farmarisay asagii xisbigiisaba hogaaminta dowladda. sidaas waxay ku noqotay haweeneydii ugu horeysay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Jarmalka xukunta midowgii labadii Jarman kadib 1971 iyadoo mar kale dib loo doortay sanadii 2009. haddaba daawade, ma rumaysan kartaa in Merkel ay tahay gabadha sharciga ee Adolf Hitler? xogo si hoos looga helay sirdoonka midowga Soviet ayaa daha qaaday in Merkel ay tahay gabadha sharciga ee Adolf Hitler. xogaha waxay intaa ku dareen in dowladdii Naazig ay ku dhaaqdo mashruuc iyagoo kaashanaya caalamkii taranka ee Dr. Karl Kohlberg inuu adeegsado xamaha Hitler ee la qalajiyay si uu u dhasho ilmo wata sifaadka Hitler. mashruucaas oo lagu fuliyay Anissa Griter, taasoo ahayd gabadhii ka yareed xaaskii uu qabay Adolf Hitler ee Eva Braun. sidaana waxaa ku dhashay Angela Merkel. sidoo kale xogaha waxay sheegayaan in Merkel ay ku soo barbaartay xukuumadihii galbeedka xilliga oo ay jirtay fikraddii ahayd mideynta dowladaha Yurub. waxyaabaha ay la gaartay ama lagu xasuusan karo Merkel waxaa ka mid ah mar ay qabsatay majalladaha ugu afka dheer caalamka Oktoobar 2013. xilliga oo ay jirtay tuhunkii ahaa in hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ay dhageystaan wicitaanada gaarka ee Merkel. xilliga oo ay kaga jawaabtay saaxiibadu inay si sharci darro isu dhageystaan ay tahay wax aan marnaba la aqbali karin. dhanka xiriirada, waxay saxiixday heshiiska golaha dhaqaalaha badda Atlantika, taasoo ujeedkiisu ahaa in xuduudaha la isku furo, dadaalada dhaqaalaha ee kan ganacsigan la ballaariyo, gaar ahaan aagga ganacsiga xorta ah ee dowladaha ku laala badda Atlantika. iyadoo ka shaqeysay xoojinta xiriirka Indiya sanadii 2006. baahin weyn oo lagu sheegay in labada dowladood ay iska kaashan doonaan isdhaafsiga khibradaha tamarta, tiknoolajiga iyo difaaca. xilliga oo majalada Forbes ku tilmaamtay Merkel inay tahay haweeneyda ugu awoodda badan caalamka, sababtoo ah waxay awooday inay xukunkeeda ilaashato muddo dheer iyo iyadoo aysan saameyn dhaqaale burburka adduunka wajahay xilligeeda, iyadoo dowlado waaweyn ay ku dhawaadeen inay sagxadda soo taabtaan. sidoo kale majalladu waxay ku tilmaamaan Merkel inay tahay haweeney bir ah, taasoo ka dhigtay Germany mid hogaamisa midowga Yurub iyo inay noqoto awoodda ugu sarreysa, gaar ahaan bixitaankii Britain iyo midowga Yurub. waa aqoon-yahanad isku bedeshay siyaasiyadda ugu awoodda badan adduunka, iyadoo awoodahaas oo idin leh haddana waxay degan tahay guri yaro u dhow mid ka mid ah madxafyada Berlin. ku darso ma lahan diyaarad u khaas ah iyo dooni raaxaba. dhammaan muddadii ay joogtay xukunka mid ka mid ah dowladaha caalamka ugu awoodaya dhaqaalaha badanba. Merkel waxay ku guuleysay hogaaminta xisbigeeda, kaasoo badi xubnaheeda ay yihiin rag. iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan, haddana waa mid isdhuldhigid badan. waxay u soo baxdaa iibsiga waxyaabaha ay u baahan tahay, weliba suuqyada dadka caadiga ah. waddooyinka looma xiro sida madaxdeenoo kale. kama hor imaada xilliyada ay waddooyinka marayso amarada taraafikada. sheekada haweeneyda jilbaha dhulka u dhigtay Yurub iyo caalamka intiisa kaleba waxay soo gabagaboomaysaa sannadan 2021 kadib markay si iskeeda ugu dhawaaqday inay xukun ka degayso.